السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. waa muuqaal kale oo ku saabsan muuqaaladeennii SQL injectionka. muuqaalka kani waxaan kaga hadli doonaa xirfaddan SQL injectionka inagoo u isticmaali doonaa page aan ahayn pagekii markii hore aynu isticmaalaynay loginka ahaa. marka kani waxaan isku dayi doonaa injection inaynu sameyno injectionkaasina aynu sameyno qaab ka duwan qaabkii aynu markii hore u sameynay. markii hore waxaynu isticmaalnay post method, hadda ise waxaan isku dayi doonaa get inaynu isticmaalno. get waxaa loo isticmaalaa ama get request qaabka u shaqeyso waxaa ka mid ah in information ka siiso server iyadoo la isticmaalayo URL-ka. URL waxaa loo yaqaanaa intan sare ee browserkaaga xagga sare ku qoran. haddaba pagekan qaabka u shaqeynayo ama qaabka aynu isticmaalayno iyo qaabka aynu injection u sameynayno intaynu ka hor inta aynaan u tegin qaabka uu shaqeynayo marka hore aynu isla fahamno. waxaynu ku dhex lahayn databasekeena username loo yaqaano abyad09, passwordkiisuna waxa uu ahaa 1234 ayuu ahaa. haddii aan ku dhufto view account details waxaan heli doonaa usernameka abyad iyo passwordkiisa iyo signaturekiisa ayaan heli doonaa. marka pageka kani waxaa loo isticmaalaa inaad dhaato aad view garayso ama aad aragto ama aad display garayso daatadaasoo database-kaaga ku jirta inagoo isticmaalayna web application. haddaba halka kani vulnerability ayaa ka jiri kartaa, nuglaashiye ayaa ka jiri kartaa. nuglaashiyahaas ayaynu isku dayi doonaa inaynu ka faa'iidaysano inagoo isticmaalayna xirfadeennii SQL injectionka. haddaba guud ahaan waxaan ku bilaabi doonaa xirfadda tani ama get method. xirfadda tani aynu isticmaalayno ee get weliba aynu isticmaalayno waa informationka aynu isticmaalayno waa URL-ka. waxaanu analyze garayn doonaa URL-kani informationkan uu ina siinayo. haddiiba aad aragto pagekaagii ama website markaa isticmaalayso ama website ama web applicationka isticmaalayso informationka inuu nooca kani kuu siinayo markaan halkan geliyo abyad iyo passwordkiisii 09 iyo weliba markaan geliyo passwordka oo ah 1234 intan markaan geliyo halka kani waxaad ku arkaysaa pagekan loo yaqaano index.php inuu userka informationkiisa uu ka raadinayo meeshan ay ku qoran tahay username. sidoo kale passwordkana uu passwordka informationkiisa uu ka raadinayo qaybtan text boxkan ay ku qoran tahay password. haddaba halkan injectable weeyaan, mararka qaarkood code execution ama SQL injection ayaa la soo gelin karaa iyadoo oo laga faa'iidaysanayo keywords-kii aan hore u soo sheegnay ay ka mid ahaayeen an, or iyo orderby. marka waxaan isku dayi doonaa URL-kani tolow nuglaashiye ma leeyahay, tolow ma u nugul yahay SQL injection inaynu ku sameyno. qaabkeen ugu samayn karnaa? haddaba waxaad ogtahay username-kan inuu yahay text boxkan, passwordkana inuu yahay text boxkan. valuegaad halkan geliso ama daatadaad halkan geliso iyo daatadaad halkan geliso waxaa toos looga soo eegi doonaa database-kaaga. haddaba waxaan isku dayi doonaa query ama SQL injection ayaynu samayn doonaa. SQL injectionkaasi oo ka duwan qaabkii markii hore aynu samaynay. markii hore waxaanu isticmaalnay operatorska ay ka mid ahaayeen an iyo or. hadda markaan waxaan isku dayi doonaa keywordka loo yaqaano orderby inaynu isticmaalno si aynu u ogaano website-kan ama web application-kan inuu u nugul yahay SQL injection. markaa waxaan leeyahay sidii caadiga ahayd waxaan ku bilaabayaa code ama single code ayaan ku bilaabayaa. ito waxaan leeyahay orderby ayaan leeyahay. orderby markaan idhaahdo ito waxaan gelinayaa number 1 ayaan gelinayaa. number 1 markaan geliyo waxaa layga baahan yahay sidii aynu naqaanay si aynu ku naqaanay codekeenii ama sidaynu ku naqaanay SQL injectionka markii hore aynu sameynay single codeka aynu kusoo xidhaynay. single code markaynu daarno ka hor single codekaasi waxaynu sameynaynay wax loo yaqaano hash ayaynu isticmaalaynay. haddaba marka URL-ka la isticmaalayo hash sida ay tahay looma isticmaalo. waxaa la isticmaalaa HTTP encoder ayaa la isticmaalaa. hashta waxaa loo isticmaalaa as percentage iyo 23 ayaa hash loo isticmaalaa. intan haddaan idhaahdo maxaa dhici doona, waxaa dhacaya iminka failure ayaa dhacayo. tolo koodkayga wax miyaan ka qalday? yes ha koodkayga ayaa wax ka qalday. waxaan ka saarayaa single codekaas ayaan ka saarayaa. single codeka maynaan isticmaalayna already koodku waa xidhnaa. intan haddaan geliyo maxaad arkaysaa iminka? waxaad arkaysaa informationkii aan markii hore sida saxda u geliyey macluumaadkii uu siiyey ayaan haddana uu siiyey aniga oo weliba ku darsaday
code SQL injection anigoo hadda weliba ku darsaday code SQL injection sidii saxda ahayd umaan isticmaalin halkaa ayaan geliyey code SQL injection deetana wuxuu siiyey macluumaadkii markii hore uu siiyey oo kale haddaba muxuu yahay codeka SQL statementka ee la rangareeyey databasekeena haddii si normal uga rangarayno maxaa dhacaya waa kan databasekeena marka aynaan codeka SQL injectionka aynaan gelin databasekeena wuxuu rangaraynayaa querygan ayuu rangaraynayaa laakiin order markaynu idhaahno waxaynu ku soo daraynaa intan laakiin haddii aan intan aanoo isticmaalaya database-keyga laftirkeeda aan ka rangareeyo wax erara ii soo saari maayo oo toos ayuu u shaqaynayaa oo waa code caadi ah oo si normala u shaqeeya weeyaan sidoo kale waxaynu isla codekaasi uga faa'iidaysanaynaa inaynu inject ku samayno wax loo yaqaano web applicationkeena intaa marka aynu aragno uu shaqeeyo wax erara inoo soo saari waayo waxaad niyadda ama maskaxda ku hayn doontaa inuu yahay web applicationka mid u nugul SQL injection sidoo kale xasuusnow security levelka web applicationkeenu waa 0 macnaheedu waxay ka dhigan tahay hadhow toole waxaynu isticmaali doonaa xirfado kale oo xirfadan kasii adkaansan si aynu u ogaano web applicationkani SQL injectionki inuu u nugul yahay iyaga waayahay haddaynu intaa ogaanay waxaan idila wadaagi lahaa note yar oon ku soo koobay commandskan aynu isticmaalayno hadday noqoto commandka uu isticmaalayo web applicationku iyo SQL injectionka aynu samayno waa kan queryga uu isticmaalayo databasekeenu marka aynu injectionka aynu ku samayno isla querygan ayuu isticmaalayaa querygana databasekeena dhexdiisa waa mid sax ah oon lahayn wax cillad ah wax erara aan lahayn saad ku aragteen databasekeena markaynu ka rangarayno halka kani waxaan ku soo koobi gareeyey URL-kii ayaan ku soo koobi gareeyey meesha ay ku qoran tahay username oo dushaa sare ah iyo valuegii abyad 09 iyo passwordkii dhexdooda ayaan waxaan soo geliyey SQL injectionkaasi oo ku soo furnay single code maxaan single codeka aynuugu furnay waxaynuugu furnay single codeka already abyad codekan marka coderka ama qofka developerka databaseku single code hore ayuu soo geliyey haddii maadaama taasi lasoo furayna mid lagu soo close gareeyo ayaan u baahnay that's why aynu isticmaalaynaa single codeka ugu horeeya order by ayaan leeyahay by one ayaan leeyahay keliya waxaanu isticmaalayaa inaan ku tasgareeyo URL-kan inagoo isticmaalayna get muu nugu yahay SQL injection percentagekan waxaanu isticmaalay percentage 23 marka http encoder kala bedelo waxay u dhigantaa wax loo yaqaano hash waad check gareyn doontaa idinkoo http encoderka isla eegaya hash waxay u taagan tahay semicolon waxay u taagan tahay $sign waxay u taagan tahay marka hash waxaa loo isticmaalaa percentage 23 intaa markaan pagekeydii ka rangareeyey iyadoo ay ka maqan tahay equal iyo percentage iyo hash intaa markaan ka rangareeyey aan dhex geliyey usernameka dabadiisa iyo passwordka inta u dhaxaysa waxaad aragtay pagekeennii indhagoo isagoon wax erara inoo soo saarayn ayuu rangareeyey querygii taasi oo inoo tusaysay ama inoo caddaynaysay in uu websitekan ama web applicationkani u nugul yahay SQL injection waxaynu eegna haddaba xirfado kale oo sii raacsan xirfadan gaarka ah ee inu isticmaalayno URL-ka ama get loo yaqaano method waayahay maadaama aynu ogaanay inuu webpagekan ama web applicationkan u nugul yahay SQL injection bal haynu isku darno xogaa ama haynu isku dayno xirfado kale oo bal hadda dheeraada oo intaa kasii baxsan ama kasii xogaa level sareeya taasoo aynu ku ogaan karno sidaynu wada ogsoonahay usernamekan iyo passwordkan aynu ku galayno web applicationkani waxa ay ka mid yihiin usernamekuna waa column ka mid ah table ka mid ah tablada databasekan web applicationkan uu ku xidhan yahay sidoo kale passwordkuna waa column ka mid ah databasekan web applicationkan ku xidhan yahay tablekiisa gaarka ah haddaynu si kale u dhigno waxaad og tahay databasekan uu ku xidhan yahay web applicationkan in loo yaqaano OWSB10 ayaa loo yaqaanaa OWS10 databasekan haddaan idhaahno show tables
taybiladiisa itus commandkii aynu isticmaalanay waxaa ka mid taybiladiisa taybilkan ugu sareeya oo loo yaqaano accounts loo yaqaano. haddaba maxay tahay muhiimadda uu taybilkani u leeyahay web applicationkeena? muhiimadda uu taybilkan u leeyahay waxay tahay in userska iyo dhammaan userska ka taybilkaasi dhexdiisa ku kaydsan aynu login ku samayn karno databasekeena. haddii aad admin ku soo gasho pagekaaga waxaad gali kartaa oo horey aad uga socon kartaa pagekaaga oo username aad lagu gali karo weeyaan. sidoo kale waxa uu leeyahay password ayuu leeyahay. sidoo kale waxa uu leeyahay signature iyo admin ayuu leeyahay. admin miya no haddii uu admin yahayna true ayuu soo dhigaya, haddaanu ahayn userska kalena false ayuu soo dhigaya, haddii aan labadaas midna aan ahayna null ayuu soo dhigaya. markaa muhiimaddu waxay tahay taybilkani waa taybilka loginka aynu u isticmaalayno markasta oo usernameka aynu halkaa gelino, sidoo kale aynu passwordka halkan gelino. waxa usernameka aynu halkan gelino iyo passwordka aynu halkan gelino si toos ah oo databaseka looga soo eegayaa in usernamekaasi uu halkan ka jiro, sidoo kale passwordkaasina uu halkan ka jiro. haddii labadaasi la helo waa success weeyaan loginkeeni, laakiin haddii la waayo ma dhacayso oo pagekeenu wuxuu odhanayaa username saxa iyo password saxa geli. haddaynu haddaba taasi isla fahanay imika databasekeeni ayaan toos u soo galay, waynu garan karnaa inta uu ka kooban yahay inta column ee uu ka kooban yahay. ka soo qaad markaad haddaba real SQL injectionka aad samaynayso ma garanaysid database-kaagu ama loginkan aad samaynayso pageka taybilka uu ku xidhan yahay inta column ee uu ka kooban yahay. haddaba xirfad waxaan idila wadaagayaa ama qaab aad ku ogaan karto isla taybilkaasi inta column ee uu ka kooban yahay. xogtaasi ama warbixintaasina aad ayay nooga anfacaysaa dhinacan xirfadan SQL injectionka iyo guud ahaan security-ga. haddaba halkan haddaad arkayso commandkii markii hore aan isticmaalay oo ahaa order by one ama one column waxa uu soo sheegay ama database-kayga uu sheegay inuu wax jira yahay, wax errorana inuu soo saaray. taa micnaheedu waa sax ayay ka dhigan tahay oo column waa jiraa. haddaan haddaba aan ku dayo database-kayga ilaa imse column ayaa ka jiri karaa, waxaan ku eegayaa ilaa iyo 100 ayaan ku eegayaa. markaan rangareeyo hadduu error isoo saaro micnaheedu waxay ka dhigan tahay taybilkan loginkan ama pagekan loginka inoo samaynayo ku xidhan yahay 100 column kama koobna. intan markaan idhaahdo waxa uu ii soo saarayaa error ayuu ii soo saarayaa. errorkaasi oo uu leeyahay unknown columns ayuu leeyahay, ma jiro 100 column ayuu leeyahay. sidoo kale order close weeyaan querygan aynu isticmaalnay halka uu error ka jiro order close kan isticmaalnay weeyaan. sidoo kale haddaba haddaan idhaahdo waa yahay 100 column kama koobna taybilkaasi, haddaba baltoma konton baan gelinayaa. konton markaan geliyo sidoo kale error buu soo saaray, waa yahay 50 column kama koobna. haddaba waxaan ku eegayaa 10 column 10 column ayaan gelinayaa. inter markaan idhaahdo URL-kii aan inter idhaahdo sidoo kale error buu soo saaraya. waxaan ogahay inaanu 50 una ahayn maadaama uu error soo saaray, waxaan ogahay inaanu 100 ahayn maadaama uu error soo saaray, 10 ma aha maadaama uu error soo saaray. laakiin haddii aan geliyo 5 oo kale inter aan idhaahdo wax error ma soo saarin, micnaheedu waxay ka dhigan tahay 5 column waa jira. haddaba exactly waxaan rabaa inta column ee uu ka kooban yahay. waxaan eegayaa 10 markaan geliyey error buu soo saaray, haddaan mar labaad ku celiyo 10 markaan geliyey error buu soo saaray, micnaheeduna waxa weeyaan 10 column taybilka loginka ama taybilka accounts-ka ay ku qoran tahay kama koobna, intaa inkeer ayuu ka kooban yahay. haddaba markaan 5 geliyey laakiinse wuxuu ii soo dhigay accept ayuu ii soo dhigay oo way jiraan bigu 5 column. haddaba aan ku eego 6 column aan ku eego 6 column ma jiraan, still error ayuu soo saaraya. xasuusna waa 5 markaan geliyana error ma soo saarayo, micnaheedu waxa weeyaan 5 column waa ka jiraan. 5 column waa ka jiraan ayay ka dhigan tahay maadaama uu error ii soo saaray. database-keena haddaad si toos ah u gasho markaa 5 column ma jiraan, 1 2 3 4 5 way jiraan 5 column. iminka si real ayaynu u aragnay database-keenu ama taybilkeenu inuu 5 column leeyahay, laakiin markaynu SQL injectionka isticmaalayno xirfadaasi ayaad ku ogaan kartaa taybilkaagan loginka ah usernameka iyo passwordka laga soo eegayo inta column ee uu ka kooban yahay. intaa markaynu helno haddaba aynu isku dayno inaynu isticmaalno annaga query kale aynu ku ogaan karno macluumaad kale oo muhiim ah. okay maadaama haddaba taasi oon ogaanay
ogaanana inuu 5 column uu ka tirsan uu yahay table-keenan loginkii ama accounts loo yaqaano. aynu isku dayno haddaba inaynu xirfad kale isticmaalno aynu ku ogaan karno macluumaad kale oo muhiima inagoo isticmaalayna functions gaara oo ay ka mid yihiin database, version iyo user. ka horse intaanan database-kayga ama SQL injection aanan samayn bal aan isku dayo inaan u sameeyo si legal ah ama sharciya aanan isticmaalin SQL injection. waayahay hore halkan waxaynu ku haysanay table loo yaqaano accounts. sidoo kale waxaynu haysanay table-kan iyo recordadiisii. anoo isticmaalaya query-gaasi hore markii hore isticmaalnay ayaa waxaan isku dayayaa haddana inaan barxadda waxoogaa sii ballaariyo anigoo isticmaalaya union. si aan taasi u sameeyo waxaan dhammaystiro SQL query-gayga. SQL query-gayga muxuu ku dhammaystiran yahay? waxaan rabaa inaan qoro inta uu web application-ku rangaraynayo iyo inta aan SQL injection-ka ku samaynayno. inta tani waxaa rangaraynaya web application-ka oo dee web application-ku si saxa ayuu u shaqaynaya. laakiin halkaa wixii ka dambaysa ayaanu u isticmaali doonaa SQL injection-keena. markii hore ayaynu order by isticmaalnay si aynu u ogaano website-kan inuu nugul yahay sidoo kale get ama URL-kan inuu injection lagu samayn karo. markaa waxaan isticmaalayaa union waxaa loo isticmaalaa marka aad rabto database-kaaga in aad laba select statement aad isku combine garayso resultigooda. haddaba haddaan idhaahdo waxaad igu combine garaysaa maadaama 5 column inuu ka kooban yahay aan ogaaday waxaad igu combine garaysaa 1 2 3 4 iyo 5 ayaan leeyahay deetana waan soo xirayaa semicolon ayaan leeyahay. hadduu error ii soo saaro micnaheedu macquul maaha SQL injection ama query-gan ma shaqaynaya ayay ka dhigan tahay. laakiin hadduu shaqeeyo waxay micnaheedu tahay sidoo kale waxaanu isticmaali karnaa SQL injection. inter markaan geliyo waxaad halkan ku arkaysaa 5 records. waxaad ku arkaysaa halkaasi selectigii hore iyo selectiga dambe ayaad arkaysaa. ilaa halkaa laga soo gaarayo waxay select garaynaysaa ama ay informationkiisa inoo soo daabacaysaa userka uu magaciisu yahay ama username-ka uu yahay ama username-kiisu yahay abyad 09 oo kan ah iyo password-kiisuna uu yahay 1234 recordkiisa oo dhammaystiran ayay inoo soo daabacaysaa. oo halkaa sida selectiga hore aad ku arkayso waxaan helnay abyad 09 laakiin hoostiisa maxaynu ka helnay waxaan ka helnay output kale ama result kale ayaynu ka helnay. resultiga aynu helnay waa resultiga aynu halkan unionka aynu ku sameynay nidhi select 1 2 3 4 5 and haddaba isla intaasi inagoo isticmaalayna aynu isku dayno inaan injection ku samayno web application-keena ama web application-ka laftirkiisa inagoo isticmaalnay URL-ka sare ama URL-kan dusha sare inagoo isticmaalayna aynu isku dayno baxaata injection. inta u dhaxaysa single code iyo waxaan isticmaalayaa percentage inta u dhaxaysa deeto waxaan leeyahay pass ayaan leeyahay. aan ku noqdo ma ii saxba union yes waa ii sax weeyaan. inter aan geliyo maxaa soo baxay? laba result ayaa soo baxday oo kala duwan. waa resultigii hore ee database-kaba aynu ka soo aragnay iyo resulti dambe ayaynu helnay. maxaynu isku combine garaynay 1 2 3 4 5 nothing waa micno ma laha laakiin iyagoo micnole waan soo wadnaa. laakiin hadda waxaad arkaysaa labadii resultiba inaad heshay. taa micnaheedu waxa weeye halkaad 1 2 3 4 5 aad uga isticmaashay waxaad u isticmaali kartaa wax kale oo ka muhiimsan intaas. haddaba waxaan u isticmaalayaa halka aan 2 u isticmaalay waxaan u isticmaalayaa function ayaan u isticmaalayaa. functionkaasi oo loo yaqaano database. functionkaasi waxa uu sameeyaa oo inoo soo daabacaa database-ka magaciisa. waxaan leeyahay functionka oo dhammaystiran parentheses ayaan ku soo xirayaa. sidoo kale waxaan leeyahay version ayaan leeyahay. sidoo kale waxaan kusoo xirayaa parentheses open iyo closed ah. sidoo kale afarta waan iska masaxayaa waxaana kusoo xirayaa user iyo weliba parentheseskiisii into inter ayaan leeyahay. u fiirso waxa dhacaa haddaba dib u soo noqo. resultiga hore waan isla naqaanay laakiin resultigan dambe hadda u soo noqo. username-kan waxa uu sheegayaa halkaanu database-ka waxaynu nidhi marka hore selectiga hore markaad ka timaado inta dambe maxaad u soo daabacdaa database-ka. tan micnaheedu waxa weeyaan waxaynu sidaa ku ogaanay database-ka web application-keena. sidoo kale waxaan nidhi waxaad noo soo daabacdaa versionka database-keena waa versionkii dee systemkan aynu isticmaalaynay oo ubuntaha ahaa. waa information kale oo iyadna muhiima.
sidoo kale waxaad ii soo daabacdaa baan ku yiri userka ii soo daabac isla userkiina uu ii soo daabacay oo adiga halka ku arkaya functionskani ma kuwa URL ku ka shaqeyn karaya ba database serial ma uga shaqeyn karaan aan tijaabino sidoo kale waxaan idhi database-ka tuuga intaan iska masaxay ayaan waxaan ku qoray database ama functionka database ayaan parentheses open ah iyo close ayaan isku raaciyay sidoo kale waxaan raaciyay version ayaan raaciyay version kan soo daabac baan ku yiri sidoo kale waxay soo daabacdaa baan idhi userkan ay soo daabacayaan idhi sidoo kale open parentheses iyo close parentheses waa SQL-ka query-ga aynu rangaraynay imika weeyaan oo database-keena aynu uga rangaraynayno si sharciya si legal ah inter markaan idhaahdo intii halka iga soo baxday web application-kayga result la mid ah ayaa halkana iga soo baxday si fiican u eeg labada resultina isbarbardhig ku sameey halka kan waxa iga soo baxay root hadda SQL-kayga aad u timaadana waxa ii soo baxay root iyo weliba IP address-kiisii waa cajiib weeyaan aynu isku dayna haddaba haddii aynu waxoogaha yar ilaa imika aynu soo yar aynu soo baranay waxoogaha yaro SQL injection ah aynu isku dayna haddaba inaynu horey usii socono waayahay maadaama soo aragnay macluumaadka aadka u muhiimka ah waxaynu isku daynaa haddaba inaynu sii dhex galno SQL injectionkeena inagoo isticmaalaynaa ama ka faa'iidaysanaynaa weli union waxaan loo yaqaano union waa keyword ama waa qayb ka mid ah SQL injectionka ama language-kaas lagu barto kaasoo isku combine garaysaa two result of selected statement okay haddaba inagoo taasi isticmaalayna database-keena waxaan isku dayayaa halkii aan markii hore ka isticmaalay 1 2 3 4 halkan ka isticmaalay inaan isticmaalo query kale oo muhiima querygaasi oo information ama macluumaad iga siinaya iskiimada database-keena iskiimada dhexdeeda waxaa ku kaydsan database-ka iyo waxyaabo fara badan ama macluumaad fara badan oo la xiriira hadday noqoto relationshipska iyo database-ka qaabka isugu xiran yihiin tableska userka database-ka permission-kooda iyo waxyaabo kale oo muhiima haddaba waxaan leeyahay halkii aan markii hore ka isticmaalay 1 2 3 4 ayaan waxaan leeyahay marka kani waxaad ii soo daabacdaa oo isku daydaa inaad ii soo daabacdo command loo yaqaano ii soo daabac baan leeyahay union ayaan idhi selected maadaama commandku aad u dheer yahay waxaan sameeyey hore ayaan u qoray sidoo kale waxaan rabaa imika inaan dhahdo midmadiisu sii dul istaago saad u fahantaan union waa operatorka ama waa keywordka isku combine garaynaya resultiga xaggan laga xiga selectigaasi ayna siinayso iyo resultiga selectigan aynu ka helayno labada resultina ama hal mar aynu wada helayno outputka ka soo baxa labadan selects haddaba waxaan idhi select isoo daabac column 1 column 2 waxaa isoo daabacdaa table name column 3 null waxbaa isoo daabicin ka kale afaraadna waxbaa isoo daabicin ka shanaad sidiisa igu soo daabac waxaa halkan iga soo daabacaysa columnskan waa kuwe waa information schemada inoo soo daabac tableska iyo informationkooda isoo daabac ayaa ku yidhi inter markaan idhaahdo waxaa isoo baxay 237 rows ayaa isoo baxay ama 237 record ayaa isoo baxay maxay yihiin 237 record waxa weeyaan information muhiim ah oo la xiriira iskiimada database-keena haddii ay noqoto tableskii haddii ay noqoto columnskii haddii ay noqoto userska qayb ka mid ah database-ka maadaama waxa privilege-ka aynu database-keena ku isticmaalayno root yihiin waxaa inoo soo baxaya ilaa iyo system databaseska ayaa inoo soo baxay haddaba isla commandka aynu halkaa ka rangaraynay aan isku dayno SQL injection ahaan inaynu u sameyno aynu isku dayno waan soo koobi garaynayaa ilaa iyo halkaa semicolon la isticmaalayno markaanu sameynayno SQL injectionka URL-kayga ayaanu imanayaa halka ay ka bilaabmayso union ayaa waxaan leeyahay ilaa iyo union ilaa iyo 5 iga masax markaad iga masaxdo deet halka waxaad ii dhexgelisaa koodkaan soo koobi gareeyey baas ayaan leeyahay union select one table name soo daabac table name-kaasi oo ka tirsan information skiimaha tables ayaan leeyahay sidoo kale percentage okay ayaan leeyahay inter markaan geliyo resultiga halkan iga soo baxay oo fiirso horey ayaynu uga soo aragnay database-keena informationkan
halka kanina waxaad ku arkaysaa isla informationkii aynu databaseka si toosa uga soo rangaraynay inaynu halkana ku aragnay 27 ama 237 records ayay ahaayeen isla 237 recordba waxaynu ku helnay inaga oo isticmaalayna SQL injection oonan isticmaalayn SQL querieskii caadiga ahaa waayahay hore haynu ugu sii soconno waayahay kahorse intaanan halkaa dhaafin waxaynu soo daabacnay querigeena saad arkayso union waxaan idhi selecting one table from schema ayaan idhi tables haddaba waxaa xusid mudan halkan commandka halkana ayaan inoogu soo koobi gareeyey commandka aynu ran garaynay commandkan ayaan rabaa inaan dul istaagno oynu fahamno waxa uu yahay ka hore waynu naqaanaa oo waa kii databasekeena uu isticmaalayay usernamekan iyo passwordku laakiin kan dambe aynu ku combine garaynay waxa weeye select one table name null iyo mar labaad null baan isticmaalnay columniskii shantii ahaa ee database ama tablekeenu ka koobnaa from halkee information schema marka information schema waxa macquula inaad isweydiinayso toloma table ba laakiin maha table waa default database ama default table ama waa information ama waa database ama waa table oo si default u sameeyo databaseku gudihiisana laga helo databaseki aynu soo ogaanay ama databaseska ku jira guud ahaan systemkaaga iyo informationkooga oo dhammaystiran dhinac walba informationkooga oo dhammaystiran ayaa iskiimada laga helaa marka tablekani waxa uu ka muhiimsan yahay dhammaan tableska kale haddaad tablekan aad hesho waxaad heshay xogtii tableska kale oo dhan xogtii databaseka oo dhan ayaad heshay that's why aynu focuska u saaraynay marka aynu soo ogaanay databaseka aynu isticmaalaynay haddana aynu focuska u saarnay inaynu ogaano informationka ku kaydsan dhexdeeda schema gaar ahaan tableska waayahay haddaynu hore haddaba ugu sii soconno haddaba waxaa xusid mudan markaad real life SQL injection aad samaynayso halkaad iminka ka hesho dhammaan databaseska kale ee systemkeena ku jira waxay u badan tahay inaad aragto keliya web applicationkaad ku jirteed isticmaalayso keliya database la xidhiidha oo arki maysid databaseska kale systemkaa ku jira markaad SQL injectionka aad u samaynayso serial ah ama aad meelo ka baxsan testiga meeshan aynu ku samaynayno aad ku samayso waa wax marar fara badan aan arkay inta badanna la arko table constraints aad bay muhiim ugu tahay databaseska waa dhammaan constraintskii iyo xogtoodii gaarka ahayd waa xogtani aan idinla wadaagayo waa xog aad u xasaasi ah waxaan idin xasuusin lahaa ama aan rabaa inaan idiin sheego xogta tani ama xirfadda tani aan idinla wadaagayo inaad iska ilaalisaan inaydaad ku tijaabisaan meel aydan awood iyo ogolaanshiyo midnaba aydan u haysan ma fiicna keliya waxaan xirfaddan aan idinkala wadaagayaa waa si waxbarasho ahaan si aqoon ahaan si aan xirfaddeena kor ugu qaadno marka iska ilaali inaad u tijaabiso si ka baxsan sida ardaynimada haddii kale waxaad kala kulmi kartaa waxyaabo ku dhibaateeya ama caqabado kale ayaad kala kulmi kartaa wax kastood kala kulantana waxaan ka cudur daaranayaa aniga aanan mas-uul ka ahayn imikadana aan idiin sheegay oonan wax kasta oo ka yimaada oo ka baxsan sida anshaxa inaanan mas-uul ka ahayn waayahay waxaad is leedahay xogta tani intan leeg 237 rikoodh ah inta aad keliya u fiirfiirsanayso ayuuba waqtigu kaa dhacayaa eed midmid u eegayso eed midmid u sii raadinayso mid kastii waxa uu yahay aynu isku dayno haddaba inaynu soo koobno resultigan inoo soo baxday inagoo SQL injection samaynayna maxaan isku dayi doonaa inaynu soo koobno oon ku soo koobno keliya macluumaadka la xidhiidha database-kii aynu horey u soo ogaanay in web applicationkeenu isticmaalayo horey waxaad usoo taqaanay markaa web close in condition ahaan loo isticmaalo
marka conditionkaan rabo inaan u isticmaalo waxaan leeyahay sida nodekeena inooga xusan waxaan leeyahay web table schema keliya la mid yahay oo WASP10 informationkaasi oo keliya isoo daabac waxa kale iga qari marka waxaan leeyahay web table schema is equal maadaama waxaan qoraal yahay waxaan u baahanahay double quote waxaan leeyahay databasekeena magaceeda waynu naqaanaa waynu hore usoo ogaanay databasekeena oo keliya ayaan gelinayaa aan check gareeyo commandkeena toban waxba ka qaldan laakiin waxaynu ku ogaan karnaa markaynu ogaan karayno haddii waxaynu filayna aynu helno commandkeena ama querygeena ama SQL injectionkeena waa saxan haddii wax kale aynu aragnana waxba ka qaldan very good waxba kama qaldana waa saxan yahay maxaad aragtay haddaba halka maxaad ku aragtay keliya waxaad aragtay resultii toddoba record record maxay kala yihiin waxaad aragtay waa kow usernamekii taa waxayna siiyey selectigii hore halka kani laakiinse maxaad ku aragtay waxaan ku arkay halkan accounts ayaan ku arkay waxa kani waa maxay waa table weyn blogs table ayaan helay credit card table ayaan helay waxa kani aad aragtay waa magacdan aad aragtay maxay databasekeena si toos ah inoo geeyo hadda marka aynu joogno databasekeena inta haddaan idhaahdo databasekan aynu ku jirno haddii aan idhaahdo show tables haddaan idhaahdo informationka aynu halkaa ka helaynaayo iyo informationkii inoo soo baxay tolomays leeyihiin yes waxaan filayaa inaad fahanteen halkaa ma soo dhaafi karo kolley intiina ila socotaay labada information waa isla fahmi accounts haddaan bayaamino haddaynu bayaamino haddii waxba qarqarin mayna haddaynu bayaamino accounts baad arkaysaa halka kanina maxaad ku aragtay halka kanina maxaad ku aragtay halkana maxaad ku aragtay blogs baad aragtay accounts baad aragtay yes blog table capture table credit card table achieve weeyaan SQL injectionku kuley waa horaan u sheegnay waa xirfadaha ugu xasaasisan dhammaan web applicationska markaad heshana aad heli karto ama aad arki karto mustaqbal ifaya waxba si faahfaahin mayna halkaasaynu ku dhaafaynaa waayahay intaa haddaad la soo aragtay inana soo fahantay inana soo ogaatay waxaan rabaa halkii ugu dambeysay uga muhiimsanay halkaasi waxa weeye maadaama ood aragtay tableskii databasekaagii uu ka koobnaa waxaad u baahan tahay inaad hesho usernameskii iyo passwordskii adigoo isticmaalaya SQL injection nooca union ee selectian isticmaalay iminka waaniga nodekan inoogu soo koobay waxay inoo tusaysaa intii markii hore aynu isticmaalnay waxa keliya aynu ku soo kordhinay maadaama all tables aynu helnay markii hore waxaan nidhi well table schema uu keliya la mid yahay databaseka tableska la xidhiidha haddaba haddii aad heshay tableskii maxaad u baahan tahay inaad hesho tableka ugu xasaasisan tableka ugu muhiimsan web applicationkeena iyo guud ahaan databaseka waa tablekee wey maxaad filaysaa tablekee inuu noqdo tableka wararka aynu ku store garaynay ama sawiraadda miya may waa tableka usernameska iyo passwordska aynu ku store garaynay waxaynu ogaanay tablekaasi magaciisii waxaynu horey usoo ogaanay databaseki aynu design garayno another select statementkaasi waxaynu leenahay unionkeeni toos aynugu noqono halkii markii hore aynu nidhi information schemaha tableska aynu nidhi marka kani waxaynu leenahay columns ayaynu leenahay columns ayaynu u baahannahay columns markaynu nidhaahno sidoo kale where table schema is equal to databaseka halkii aynu ka nidhi marka kani waxaynu u baahannahay inaynu nidhaahno accounts ayaan u baahannahay inaynu nidhaahno inter baan leeyahay databaseskayga si fiican suuray waxbaan qalday aanu raadino bal hadda cilada ina haysata iyo waxa ay tahay iyo sababta aynu commandkeeni markii hore inoogu rangareysmi waayey waxay inoogu rangareysmi waayey markii hore waxaanu nidhi table name deetana waxaanu aragnay dhammaan tableskii databaseka oo la xiriiray oo dhan ayaynu aragnay marka kani waxaynu u baahannahay columniska halkaa ila xasuuso waxaanu u baahannahay imise column
magacdooda numberskooda ma rabnin maxay ahayd inay information waxaan u baahanahay imise column maadaama aan ognahay inay 5 column yihiin magacdooda ayaynu u baahanahay columnskaasi si aynu u rangarayno query ama SQL injectionkii uga cajiibsanaa ama ka uu yahay cashirkeena ama muuqaalkeena maanta waa yahay inta tani ayaan rabaa waxaan ku celiyo waa select one waa maadaama one uu yahay kaliya databaseskeena inta kaliya aynu arki karno oo column ama qayb column labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad ay yihiin oo ka ugu horeeya iyo ka ugu dambeeya ma arki karno information schema columns where table name yahay accounts inta tani waxa weeyaan waa commandkii marka hore aynu ran garaynay 1 2 3 4 5 waa inta column ee uu ka kooban yahay tablekeena accounts oo markii hore soo ogaanay intan union aan isticmaalayna waa hore aynu sheegnay selectiga hore ee commandku sida realka ama sida saxda ah uu ran garaynayo ayaynu injection ku sameynaynaa inagoo isticmaalayna selectigan waxaanu ka u baahanahay inaynu helno 5 column oo columnka koowaad iyo ka shanaad uu ka maqan yahay intan ayaan haddaba soo koobi garaynayaa markaan soo koobi gareeyo toos baan ugu noqonayaa markii hore halkii aan joognay errorka inoo soo saaraysay deeto waxaan leeyahay unionkan removeigasi kan imika aan soo qabsaday igu baaskare ayaan leeyahay inter markaan idhaahdo si fiican halkaa u soo fiiro url-kayga inter markaan idhaahdo maxaa ii soo baxay ood arkaysaa waxaa ii soo baxay usernamekii columnkaasi accounts loo yaqaano waxa uu ka kooban yahay column loo yaqaano CID column kaloo loo yaqaano username 1 2 3 4 5 ayuu ka kooban yahay haddaba querygeena waxaanu rabnaa imika halkii aynu u soconay inaynu sameyno markii hore waxaanu soo daabacnay column name marka kani waxaan leenahay column name inaga daayo waxaad noo soo daabacdaa baan leeyahay usernameka noo soo daabac this column kan waa column name weeyaan waa naga soo daabacnay waxaan leeyahay column name noo soo daabac username noo soo daabac halka aad halkan nal nooga soo daabacday waxaad noo soo daabacdaa password noo soo daabacdaa waa column namekii ama waa columnkii lagu store gareeyay passwordska weeyaan halka aad nooga soo daabacday imika markii hore nal imika waxaad noo soo daabacdaa baan leeyahay my column nameka magaciisa ayaa si toos u gelinaya anoona qalday my signature ayaan leeyahay okay halka aad 5 numberkaasi toos noogu soo daabacday waxaan leeyahay naga daayo columnka ay ku qoran tahay is admin noo soo daabac from halkii iskiimadan u baahannahay informationkii dhan waynu helno iskiimadan waxaynu ka wareerinaaba information ma taalo sidoo kale weer waxaynu ka isticmaalnaa ma taalo markaa waan iska dhigid gareynaynaa intaa waxaan leeyahay keyboardkayga ku masax backspace baan isticmaalayaa from halkii waxaan leeyahay from accounts ayaan leeyahay tableka magaciisa waynu naqaanaa accounts ayaan leeyahay inter ayaan leeyahay inter markaan idhaahdo waa meeshii aynuu socday weeyaan si fiican ila fiira haddaba usernameka waa selectigii hore weeyaan laakiinse tan dambe uu ahay waa admin passwordkiisu waa maxay waa admin baas signaturekiisu waa maxay waa loki waa username kale SQL injection aad ayuu cajiib yahay waxa kani waa wada usernames weeyaan halkaynu u soconayna weeyaan waa xogtii ugu xasaasisanay ee database lagu qariyo weeyaan username iyo password xog kaloo ka xasaasisan ma jirto dhammaan recordskii waxaynu helnay databasekeena ee usernameska iyo passwordisku ay ugu muhiimsanaayeen kor haddaynu intaa helnay dee maxay kaloo u baahannahay web applicationkaasi inaga ayaa iskale xirfadda tan waxaan idin xasuusinahay inaydaan u isticmaalin si ka baxsan waxbarasho ama aqoon kororsi xirfad kordhin laakiin haddaad u isticmaasho intaa wax ka baxsan ood wax caqabada kale aanu masuuliyiin waxa kaloo idin xasuusin lahaa muuqaalka kani haddii aad wax uun aad ka faa'iida aad ku aragtay amase wax cusub uu kugu soo kordhiyey ha
ilaawin adiguna inaad channelkana subscribe saarto muuqaalkana like aad saarto meeshii aad fahmi weydana commentiga aad soo saarto si aan muuqaalada dambe aan kaga hadlo oo halkaasi aan cadeeyo ama aan bayaaniyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin steps kala duwan ayaynu soo marnay marka hore waxaynu soo ogaanay table-kani imise column ayuu ka kooban yahay login page-ka waxaynu soo ogaanay sidoo kale database-kan aynu isticmaalno version-keeda database-ka magaceeda waxaynu soo ogaanay database-kan imise table ayay leedahay waxaynu soo ogaanay table-kan imise column ayuu leeyahay login-kii waxaynu soo ogaanay login-kii imise record ayaa ku jira imise user ayaa dhexdiisa ku jira waa kan doortiina ka muuqda SQL injection iyo qayb cusub oo kale oo qaabkii marka hore aynu isticmaalnay qaab kale ka duwan aynu isticmaalnay ayuu fiidiyoga kale noo soo koobayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.